taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aad iyo aad u mahadsan yahay. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Bashiir aad iyo aad u mahadsan yahay. Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raajicuun. Intii dhimata Alla u naxariisto. Waad u jeedeen qof kastoo miidaamiyey ugu talagalay inuu shacabka dhibaato u geysto ayaa halkan gaariga u watay. ciidamada hor istaageen ciidanka markay hor istaageen baaritaanka ugu bilaabeen inuu isqarxiyey. taasna waxayna tusaysaa sida kooxahan argagixisada aysan uga naxaynin ummadda Soomaaliyeed ee mar walba u doonayaan inuu qarax bulsho ka dhaco in caalamka looga sheego. waxaa ilaah mahadiisa in ciidanka Soomaaliyeed oo foojigan ay ka hortageen qaraxaas in waxyaalo kaloo weyn gaarsiiyo shacabka Soomaaliyeed. waxaa kaloo dadka dhaawacana waxaan ilaah ugu baryaynaa in dhaawacooda bogsiiyo. waad u jeedaan maamulka gobolka Banaadir iyo shaqaalahooda waxay ku jiraan waxay tahay sidii loogu gurman lahaa dadkaas isla markaana waddadii iyo dhibka ka dhacay loogu soo celin lahaa bilicdeedii si shacabka niyaddiisa aad maaragtay u noqdo mid adag. annaga mar walba cambaaraynaynaa falalka argagixisada ay suubiyaan laakiin waxaan u sheegaynaa marnaba nagama joojin doonaan in howlihii shacabka loo qabanaya loo qabto, marnaba nagama hor istaagi doonaan in ay hor istaagaan maalmaalmeedka shacabka Soomaaliyeed. sababta keentay in maamulka gobolka Banaadir uu horey ka nadiifiyo jidka lagu soo celiyo hawshii horena si bulshada ay hawshooda ugu wadatana taas ayaa ugu muhiimsan. waxaan u mahadcelinaynaa ciidanka Soomaaliyeed ee kala duwan. maantana qarax kale ayaa la fashiliyey oo aanan qarxin. intaasna waxay tusaysaa sida ciidanku feejignaanta u yihiin. waxaan u mahadcelinaynaa shacabka Soomaaliyeed oo runtii garab istaagay ciidamada mar walbana diyaar in ciidanka la shaqeeyaan. sidaan hore u sheegnay waxaan wadnaa si istiraatiijiga amniga magaalada in loo sugo oo maamulka gobolka Banaadir degmooyinkii iyo ciidankii heedaha kala duwan ee booliiska iyo nabadgelyada aad baa loo wada shaqeeya. laysu kaashadana waxay tahay shacabka loo adeego. shacabka waxaan rabnaa inaan aad maaragtay ugu baraarujino arrimaha noocan oo kale inaysan iyojab marnaba noo keeni doonin. mar kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo bahda saxaafadda oo mar walba markuu qarax dhacana u taagan, markuu Soomaalida iyo sidii lagu badbaadin lahaa horumarka dalkan u taagan. maanta dadka idinla jooga oo ujeedaan qaar ka mid waa qaar ku dhaawacmay qaraxii 14 Oktoobar haddana shaqadoodii wata. taas waxayna tusaysaa dhalinyarada saxafiyiinta inay mar walba heegan u yihiin, diyaarna u yihiin inay waddankooda difaacaan. aad iyo aad u mahadsantihiin.